soo dhawaada khiyaarta CIA-da Mareykanka iyo Muusaadka Israel labadaas sirdoon awood ma u leeyihiin soo afduubashada hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un ama suurtagal ma tahay in ay ku qaarijiyaan gudaha wadankiisa dhab ahaantii ma fududa qabashada hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi sababtoo ah dadka wadanku waa military dhammaan haweenka iyo ragguba waa ciidan waxaana jira 1 milyan oo military oo u diyaarsan qabashada howl kasta oo degdeg ah suurtagal ayay noqon lahayd haddii si kadis ah diyaarad ay ugu soo degto xeebta laakiin maadaama deegaanka xeebta ku teedsan ay ku yar tahay dhirta waa la arki karaa diyaaradaha iyo kumaandoosta oo u soo tilaabaya dhanka magaalada Pyongyang waxa kale oo aan macquul ahayn in la isku ekaysiyo dadka deegaanka waxaana jira agab iyo aalad iyo kaamirooyin lagu la socdo dadka musaafiriinta ah ama dalxiisayaasha ah mid kale aad bay u adag tahay in la ogaado meesha Kim Jong Un uu joogo waqti kasta wararka qaar ayaa sheegaya in habeen kasta uu seexdo sariir ka duwan tii hore haddii xitaa mar la ogaan lahaa in Kim Jong Un uu ka qayb galayo xaflado ama waqti cayman meel uu joogayo ama uu ka qayb galayo dawlatus iyo wixii la mid ah markaas Mareykanka waxa u fududaan lahayd in uu gantaal ka soo rido dhanka badda kadibna uu ku qaarijiyo halkaas laakiin duqeymaha ceenkan oo kala ah waxa lagu guuldareystay in lagu dilo hogaamiyaal hore oo ay kamid ahaayeen Qadaafi Osama bin Laden iyo Saddam Hussein caqabada jirta ayaa ah in Kooriyada Waqooyi ay aad u ilaaliso dhanka amniga wax walbana waa la iska hubiyaa tusaale ahaan markii sanadkii 2018 heshiiskii ka dhacay Singapore ee Kim Jong Un iyo Donald Trump xiliga Kim waxa uu qalin ka qaatay walaashis waxa uuna iska diiday in qalinka uu Donald Trump uu ku saxiixay ee Mareykanka waxa aad loo hubiyaa ilaalinta Kim Jong Un iyo wax kasta oo isticmaalayo sidoo kaleeto waxaana aad looga ilaaliyaa in ajaanibta ay u soo dhawaadaan hogaamiyaha mayalka adag ayaa la diidayaa in laga qaado faro ama la sumeeyo hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah nin qalafsan oo wax badan lagu ogeyn hadana taariikhda aysan ogeyn xilliga uu dhashay ayaa waxa la qiyaasaa inuu dhashay sanadkii 1983 ilaa 1984 Kim Jong Un waa wiilka ugu yar oo dhalay Kim Jong Il aabihiis waxa uu bilowgay sagaashamaadkii wax ku baranayay dalka Switzerland wuxuuna wadankiisa ku laabtay hor ahaantii 2000 asagoo galay jaamacadda Kim Il Sung University Kim waxa jaamacadda Kim Il Sung University u dhiganayay 2002 ilaa 2007 waxa 2010 caafimaad darro ay la soo daristay aabihiis Kim Jong Il kaas oo darajadiisa wiilkiisa dalacsiyay waxa uu geeriyooday 2011 bishii December 17 waxa uu wadankaas hogaaminayay ilaa laga soo bilaabo 1994 geerida hogaamiyihii hore ee Kooriyada Waqooyi ayaa aad u galgishay wadanka waxa uuna geeriyooday asaga oo booqanaya meelo kala duwan oo wadanka ah wadnaha ayaana istaagay warbaahinta waxa ay shaacisay 3 maalin kadib geeridiisii waxa ayna sheegtay in uu yahay shakhsiga bedeli doona Kim Jong Il wiilkiisa Kim Jong Un waxa jira wiil ka weyn Kim Jong Un oo lagu magacaabo Kim Jong Nam kaas oo aan loo ogolaanin in uu noqdo hogaamiyaha sababtuna ay tahay dabeecadiisa oo ah mid iska qabow halka Kim Jong Un uu yahay mid kurkulul sida awowgiis iyo aabihiis taasina waxa ay keentay in walaalihiis oo dhan laga doorbido Kim Jong Un waxa wax badan ka shabahaa awowgiis oo ahaa aasaasihii Kooriyada Waqooyi iyo aabihiis taasina waxa ay keentay in asaga laga dhigo hogaamiyaha hogaamin doona wadanka Kim Jong Un ayaa ah mid nacab safarka sidoo kale waxa uu aad u jecel yahay daabashada ciyaaraha iyo aflaanta sidoo kale waxa uu aad u jecel yahay ciyaarista kubadda kolayga Kim Jong Un ayaa ah hogaamiye aad u qatar badan waxa uu dilaa cid kasta oo ka hor imaata hogaankiisa hadii ahaa lahaayeen kuwa siyaasiyiinta ah ee wadanka ka jira ama hogaamiyaasha kala duwan ee ciidanka 2013 waxa uu dil toogasho aad u farxun ku fuliyay ninkii qabay eedadiis ee loo magacaabi jiray Jang Sun sidoo kale waxa uu lidka diyaaradaha in lagu dilo amray wasiirkiisii gaashaandhiga kadib markii uu hordooday asaga oo uu socdo dawlatus military Kim waxa uu ku soo baxay hogaamiye qatar badan waxaana waardiyeeya gaariga uu saaran yahay 12 nin oo ka socda hareeraha kuwaas oo aad u foojigan aadna u tababaran